بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa maalin jimca walaalayaalow sida u jeedaan waxaan noo bilaaban doona booqashadeena magaalada halkaan horta waa magaalada Muqdisho. waxaan rabnaa maanta inaan soo booqano degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. halkaan waa qayb ka mid ah degmada Hodan iyo Waaberi. marka waxaa la yiraahdaa maalin jooga jimcaha iyo soo booqashadeeni halkaan inooga bilaaban doontaa insha Allah. kalau obat kena seperti dukun apa pernah naga be saa u jeednaa waxaan ka soo leexanay isgooska shaqaalaha si toos waxaa u soo galnay degmada Waaberi. waxay ka mid tahay degmooyinka aan rabno dalxiiska maalinta jimcaha inaan ku qaadano. marka halkaani waa degmada Waaberi. Waaberi oo wanaagsan معنا عبد الرحيم يدا مستر هيسس معنا هذي وابرو وناكسنو أصلي ولا ليس وإسوتان وابريو وناكسني ولا لهيس وإسوتان ساسي هذا ملينا ان سدا ujeedaan waxa dhinaceena marayo mid kamid ah gaadiidka West Management-iga gobolka Banaadir wuxuu qayb ka yahay bilicda magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho sideeda waxa la yiraahdaa Muqdisho macna badan la yiraahdaa magacyo badan ay leedahay. runtii Muqdisho waa hooyada Soomaaliyeed. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa quruxdan iyo bilicdan iyo wanaagga ka muuqda inuu siyaadiyo. videogeena oo noo sii socon doonaa ilaa intaan ka tagayno meeshaan u socono ah degmada Cabdicasiis gaar ahaan xeebta Liido oo aan rabnay inaan ku soo qaadano qayb ka mid ah maalinteena. waxyaalaha bilicda qurxiya ama bilicda magaalada soo jiidashada ka qayb qaato waxaa kamid ah geedaha oo magaalada Muqdisho inay kaga duwan tahay magaalooyin kale oo maaragtay aad ugu badan magaalada. geedahaas waa bilicda magaalada runtii aad bay ku soo jiidanayaan marka aragto sida ay qurux badan yihiin. sidoo kale magaalada waxay caan ku tahay gaadiidka loo yaqaan bajaajta. bajaajtu waa qaybaha horumarka sida dhinaca dhaqaalaha iyo communication-ka ama gaadiidka magaalada dhexdeeda looga adeegto. runtii degmada Waaberi waxay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn magaalada ee ku caan ah ganacsiga. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. mid kamid ah asxaabteena nagu soo biiray oo qayb ka ah asigana dalxiiskeena. saaxiibkay wuxuu leeyahay nin Yurub ka imaada og tahay laakiin waxaan rabaa su'aashaas inaa ka shaafiyo. I think Yurub aniga ma tagin laakiin
Yurub meel ka fiican inaan jooga aaminsanahay sababtoo ah waxaan joogaa dalkayga hooyo cid igu haysata ma leh xilligaan doonaa socdaa caafimaadka ilaahayna siiyey iyo nabadda iyo barwaaqada runtii waa uga mahad celinaynaa asxaabaysa ujeedaan waxaa dhex maraynaa suuqa Villa Iberia oo ka mid ah degmada Waaberi haatan waxaa soo guda galnay suuqii sida ujeedaan suuq iyo xoolo lama kala waayo xoolaha waa qayb ka mid ah dhaqaalaha dalka lo'da waxay ka mid tahay xoolaha dalkeena sidaas darteed suuqa ayay u soo qaraab tagtaa aad baan ugu faanaynaa xoolaha dalkeena dhaqaalaha dalkeena ay qayb ka tahay jaamka wadada wuxuu qayb ka yahay horumarka tusaale jaamka waa gaadiidka oo bata sidoo kale meeshu waa meel suuqa maadaama ay suuq tahay taas ayaa sababi karto inuu jaam noqdo waxaan maraynaa wadada 21 October afafka hore afisiona soo galnay waxaan taaganahay bar control ama check point aad baan ugu faraxsanahay runtii wadada waa beri ee bundooyinka martaa kusoo leexanay waxaan rabnaa in halkaas kaga bilaabno dalxiiskeenii wadadan waa degmada waa beri waxaa loo aqoon jiray wadada Lansaloti Lansaloti haddaa maqasho dadkii hore moogtahay xasuusay galayaan waxaa waaye isgooska hadda kasoo leexanay iyo wuxuu ku tagaa isgooska ceelgaabta videoga wuxuu ku noqon doonaa mid magaalada Muqdisho adoo gurigaada joogo aad ku soo dalxiisto degmada waa beri ayaa weli ku guda jirnaa mundada koowaada maraynaa mundadii koowaada ka soo baxnay xilli maqrib baa la soo gaaray waxaan rajaynayaa in aan tuka doono kadib aan dib u bilaabeynaa inaan sii wadano dalxiiskeenii maalinta Jimcaha ee magaalada Muqdisho meeshu waa Muqdisho gobolka Banaadir haddaan dib idin xusuusiyo degmada waa beri wasku soo laaban doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum.